kulan wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinta habeen qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ra'iisul wasaare Roble oo dowladda Imaaraadka kala hadlay qodobo ay ka mid yihiin wax ka qabashada abaaraha ka jira xilligan Soomaaliya maamulka Puntland oo go'aan ka gaara hadal hayn saameyn ku yeelatay xukuumadda dani digniin u diray ganacsatada deegaanadaasi qasaare xoogan oo ka dhashay qarax ka dhacay maanta magaalada Marka dowladda Kenya oo muwaadiniin Soomaaliyeed u gacan gelisay UK qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararka habeenimo ee Somali News ee u diyaar garooba mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa kowda bisha 2 sanadka 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda guda galno haddii aynu ku bilowno ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo maalmihii dambeba ku sugnaa magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sareysa dalkaasi iyo qaybo kamid ah golaha wasiirada ra'iisul wasaare Roble qodobada ugu badan oo kala hadlayay waxa qayb ka ah soo celinta xiriirka dowladda Imaaraadka iyo Soomaaliya iyo sidoo kale sida ay qayb uga noqon lahaayeen wax ka qabashada abaaraha xilligan ka jira Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta kuwaas oo qodobo dhowr ah labada mas'uul ay ka wada hadleen waxaana qayb ka ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dalka iyo kordhinta gurmadka Imaaraadka ugu talagalay dadka Soomaaliyeed ee xilligan abaaruhu saameeyeen ra'iisul wasaare Roble ayaa kaga mahad celiyay dowladda Imaaraadka taageerada ay siisay shacabka Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay inay dardar galiyaan si wax looga qabto xaaladaha bini'aadanimo ee qaybo kamid ah gobolada dalka ee xilligan ee Soomaaliya ka jiro ra'iisul wasaare Roble ayaa dalka Imaaraadka Carabta ku sugnaa maalmihii dambe kadib casuumad rasmi oo ka helay dalkaasi waxaana ka dhashay hadal hayn xoogan oo ku saabsan tagitaanka ra'iisul wasaare Imaaraadka Carabta inuu ujeedooyin gaar ah laga leeyahay isla markaana xilligan Imaaraadku sidii ay saameyn xoogan ugu yeelan lahayd doorashada Soomaaliya ay ku haminayso maadaama hore ra'iisul wasaare Roble uu sheegay in xiriirka labada dal ay xumaade dib loo soo celin doono isla markaana lacagtii hore dowladda Soomaaliya garoonka aadan cadda 2018 uga qabatay oo 10 milyan ku dhaweed dib loogu celin doono taas oo hadal hayn kala dhankeeda ay ka dhalato oo ku saabsan aan la celin karin isla markaana madaxweynaha madaxweynaha dhammaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in go'aan hal qof gaar ah aan lacagtaasi dib loogu celin karin Imaaraadka maamulka Puntland ayaa go'aan ka soo saaray hadal hayn saameyn ku yeelatay maalmihii dambeba xukuumadda dani digniin u diray ganacsatada ka howlgasha deegaanadaasi dowlad goboleedka Puntland ayaa go'aan ka soo saaray arrin cabashadooda ay ka taagneed maalmihii la soo dhaafay ee cunnada gaaska lagu kariyo taas oo qaaliyooday xukuumadda Garowe ayaa jaangoosa qiimaha gaaskaas lagu karsado cuntada kaas oo maalmihii ugu dambeeyay ka taagneed kacdoon ballaaran oo shacabka ay ka muujinayeen kadib markii uu sare u kac sameeyay qiimaha gaaska haanta oo 20 kilogram ayaa hore u gaartay qiimo dhan $50 taas oo culays badan ay ku soo kordhisay shacabka waxaana shir ay maanta isugu yimaadeen dowladda iyo ganacsatada gaaska lagu iibiyo iyo ganacsatada gaaska cuntada keento ayaa waxa ay go'aamiyeen in laga dhigo $39 midka ugu sareeya isla markaana loo tiro shacabka iyadoona ganacsatada la faray inay u tiraan shacabka isla markaana go'aanka xukuumadda iyo sidoo kale ganacsatada qoladii ku xadgudubta tilaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan shacabka ku dhaqan deegaanada kala duwan ee Puntland ayaa maalmihii dambe kacdoon xoogan ka waday qaabka ay u wado dowladda ee maamulka Saciid Cabdullaahi Dani iyo kordhinta ay sameeyeen ganacsatada cuntada gaaska lagu iibiyo waxay isla qaateen shirkadii iibisaha in ka badan qiimaha la isla jaangooyay laga qaadi doono tilaabo sharciga waafaqsan waxaana lagu wargeliyay dhammaan dadweynaha Puntland inaysan wax ka iibsan shirkadaha sheegaya in wax ka badan qiimaha ay jaangooyeen isla markaana loo baahan yahay shacabka dhankooda inay joojiyaan wararka been abuurka maadaama ay xuseen ganacsatada iyo sidoo kale xubnaha ka socda xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani in qiimo aysan joogin la gaarsiiyay gaaska ganacsatada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ka socday madaxtooyada Puntland ayaana ugu dambeyntii isla go'aamiyay in lagu dhaqmo war murtiyeedka ay soo saareen taas oo loo baahan yahay in shacabka si waafaqsan mas'uuliyiinta ka socda madaxtooyada iyo sidoo kale ganacsatada ayaana isla jaangooyay in haanta ugu weyn qiimaheeda laga dhigo $39 halka qiimaha ugu hooseeyana laga dhigay $11 xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waayihii dambeba wajahaysa eedeymo xoogan ee dhanka sicir bararka cuntada ku saabsan maadaama dagaaladii ka dhacay Boosaaso iyo sidoo kale cunno qabateen iyo canshuuro saa'id oo la saarayo shirkadaha keena cuntooyinka markaana magaalada Marko waxa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose maanta ka dhacay qarax ismiidaamin oo si weyn looga maqlay xaafadaha magaaladaasi qaraxan ayaa ka dhacay iridda hore ee garaashka lagu magacaabo Cawaale ku yaal dhabarka dambe ee saldhigga booliska degmada Marka goobjoogayaal ku sugan goobta qaraxa ka dhacay sheegay in qaraxaas oo hamiino isla markaana laga
isla markaana la kor saaray sandaqad ku taala iriida garaashka balse aysan jirin wax khasaare nafeed oo ka dhashay marka laga rabo burbur xoogan oo soo gaaray goobihii ganacsi halkaas ku yaala iyo sidoo kale laamaha amniga magaalada Marka ayaa gaara goobta qaraxaas ka dhacay waxa ayna ka sameeyeen goobtaasi baaritaan isla markaana iyo cid ka dambeysay goobta qaraxa ka dhacay ahayd garaash 4 bil ka hor ay ka dhacday qarax kaas oo ay ku dhinteen inta la sheegay 2 qofood waxaana saraakiisha ciidamada ee magaalada Marka ay sheegeen in amniga maalmihii dambe uu ahaa mid aad loo adkeynay isla markaana cid kasta oo ku hawlan inay wax u dhibto ay tilaabo ka qaadi doonaan howlgallo qorsheysan ay magaalada ka socdaan waa sida hadalka u dhigeen magaalada Baraawe ee dhankeeda xarunta gobolka Shabeellada Hoose ee caasimada maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhankeeda dhawaan lagu qaban doona doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ka imaanaya kadib markii hore loo soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ka imaanayay magaalada Marka waxa ku sugan ciidamo ka socda nabad ilaalinta Afrika kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamo kale ka socda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana amnigeedu u hawaayihii dambe mid aad loo adkeynaya inkastoo ay jiraan qaraxyo iyo sidoo kale dalal qorsheysan oo magaaladaasi ka dhaco markaana dawladda Colombia ayaa ka carootay in wadankaasi lagu daray liis warbixin qaramada midoobay ee 20 dal ay ku jirto baahi daran dareemaya xilliga isla markaana ay ka qayb tahay Soomaaliya sida ay tabisay wakaalada wararka war isniintii ka soo baxay xukuumadda dalkaas ayaa lagu dalbaday in Colombia laga saaro liiska wadamada lagu tilmaamay inay halis weyn ugu jiraan raashin la'aan wasaaradda arrimaha dibadda ee Colombia ayaa xafiiska hay'adaha FAO ee magaalada Rome waxay u gudbisay go'aan ku saabsan sida ay uga soo horjeedaan warbixintaasi sida ay ku warabeen warbaahinta dalkaasi warbixinta carada dhalaysa ayaa waxa isbuuc la soo dhaafay si wada jir u shaaciyay hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha wasaaradda ayaa lagu sheegay in dad tiradooda ay gaarayso 7.3 milyan ee reer Colombia ah haysata dhibaatooyin cunto la'aan ah ayna u dhimanayaan raashin la'aan lagana caawiyo 2022 ee lagu guda jiro wadamada leeska ka soo muuqda waxa qayb ka ah Soomaaliya Suudaanta Koonfureed Itoobiya Madagascar iyo sidoo kale Yaban arrintan ayaa sidoo kale dhalisay hadal hayn weyn oo xoogan oo siyaabo kala duwan ay uga falceliday Soomaalida isticmaasha baraha bulshada taas oo dawladda Colombia aad uga carootay leeska ay ku jirto Soomaaliya dalal kale oo Afrika maadaama ay xuseen inay tahay dawlad dhaqaale iyo sidoo kale dhinacyo badan kabasho ka sameynayso hadalka ka soo baxay qaramada midoobay aysan ahayn mid haboon aad nooga caroosiisay xukuumaddaasi qaramada midoobay ayaa xustay in macluul badan ay wajahayaan shacabka reer Colombia isla markaana cunto la'aan ay u geeriyo doonaan in badan oo kamid ah dadkaasi waa hadii sida ugu dhaqsiyaha badan aan loola gaarin Soomaaliya ayaana qayb ka ah dalalka ay xustay ee hay'adaha qaramada midoobay ee dhanka cuntada iyo caafimaadka u qaabilsan ee duruufaha nololeed ee haatan wajahayaan dadka maadaama Soomaaliya gobolada inta badan ay ka jiraan abaaro xoogan oo ku dhufatay inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa tabinta wararka Somali News ee daawada kala socoteen fadlan hadii ay tahay markii kugu horeyso aad soo booqato channelkeena subscribe ka saar YouTube sidoo kale page-keena ku soo biir oo followda iyo like isugu dar muuqaalada ayna halkan ku baahina share garay si aad u hesho xogaha iyo macluumaadka ayna halkan ku soo gudbino warka mid lamid inta kulmi doono nabadgelyo